tani waa sheekada Zion. isagu ma socdo, haddana waa kan ugu awoodda badan dhulka Ameerika oo dhan. waa Zion Clark. Lincoln waxa uu ka awood badan yahay ciidanka dalkiisa, waana uu ka dheereeyaa xagga orodka. xaqiiqdii waad aamini laadahay, sax? tani waxay ka dhigan tahay mid aan la aamini karin. docda kale haddii aynu ka eegno, waa Laafo, waxaana uu dhashay isagoo aan laheen wax luga ah sababo la xiriira cudur dhif iyo naadir ah. kuu dheere hooyadii waa ay ka tagtay markii uu dhashay oo ay ku aragtay cudurkan dhifka iyo naadirka ah. hadde waa hooyadii isagu markaa dhashay oo uurka ku siday 9 bilood. xanuun badan ah. Zion waxa uu inta badan caruurnimadiisa uu ku qaatay goobaha xalaalada carruurta, waxaana halkaasi uu kala kulmay xadgudubyo jireed iyo sidoo kale mid maskaxeed intaba. sababtoo ah dadkii uu la koray waxay u arkayeen mid markaa ka duwan iyagu, waxayna ay ula dhaqmayeen si markaa aan wanaagsaneen oo ay u dheer tahay ceebeel iyo sidoo kale qosol niyadda ka jebinaya. dad badan waxay u arkayeen in markaa uu mustaqbalka meel gaari karin maadaama uu cuuriyaan yahay, laakiin halkaa uu niyadjab ka qaadi lahaa Zion waxa uu ku doortay inuu noqdo geesi, kaasi oo rumeeyey riyadiisa. soo cajiib maaha. waxa uu bilaabay tababarka ciyaaraha Westerlinka la yiraahdo, isaga oo gacmaha kaliya ku dagaalamaya. intaas kaliya kuma ekaanin. Zion waxa uu bilaabay inuu ordo asagoo adeegsanaya kursiga waljarka, waxaana tani ay ka dhigtay orodyahan heer caalami ah, isaga oo sidoo kale la noqday mid markaa ka qayb gala tartanka feerka ee MMA la yiraahdo, isaga oo la dagaalamay qof lixaadkiisa dhammaystiran yahay isla markaana waxba aysan ka maqleen. maanta Zion ma aha ciyaaryahan, balse waa halyeey markaa ku dayasho mudan, isaga oo qalbiyadooda taabtay malaayiin bulsho ah oo ku kala nool dunida dacaladeeda, kuwaasi oo aan awoodi karin waxyaabaha iminka uu sameynayo. isaga oo tusay in caqabaduhu aysan ahayn dhammaad, waxaana uu ku caanbaxay oraahda cajiibka ahayd oo af Soomaali ahaan markaa noqonaysa ma jirto marmarsiimo. nolosha Zion waxa ay la baraysaa in haddii aad leedahay riyo aad ka dhameyn karto. xusuusnow, wax walba oo kaa maqan marnaba ma kaa xayiri karaan, kaamana hor istaagi karaan guushaada. kaliya waxaa muhiim ah qalbigaaga, maskaxdaada iyo sidoo kale go'aankaaga. Zion waxa uu noqday tusaale nool oo muujinaya in qof walba markaa uu yeelan karo mustaqbal weyn, oo qof walba uu markaa ka run sheegi karo riyadiisa haddii uusan isdhiibin. daawade wixii aragti ah waxaad loogu reebi kartaa qaybta hoose ee faallada ama kommentiska. mahadsanid.